kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsaneed xarakada al-shabaab weerarkoodan ay ku soo qaadeen tuulada Faafi waxay ku dileen hal qof sidoo kalena halkaasi waxa la sheegay inay ku afduubteen macallin ka tirsanaa macallimiinta tuuladaasi ka dhigay iskuulka hoose dhexe kooxdan ayaa dilkaasi kadib markay geysteen waxay u tilaabeen xarunta isgaarsiinta shirkadda Safaricom halkaas ay ku leedahay dab ayayna dabada u qabatiyeen magaaladana way isaga baxeen mudane Mustafa Cabdirashiid oo ah mudanaha kursi baarlamaan deegaaneedkaasi laga soo doortay ayaa VO-da u xaqiijiyay dhacdadaasi wararka ma soo gaarayaan waxa la sheegay xalay 9 al-shabaab ay gashay Faafi Center oo u jirta gaari 90 kilomitir waxaana la sheegay in maanta xaalad farbadan ay meeshii ay ku hadlayeen oo dadka Safaricom ay gubeen oo macallin meeshii ku dileen meeshii waxay noqotay meel go'doon marka ilaa haddana marka dawladda oo sheegay saaka ciidan baa u baxay oo tagay saakay markii ay ahayd 8 iyo bartamaha yani ciidanka KDF ay magaalada tageen baa la sheegay marka wararka Mustafa ayaa waxa uu sheegay in dawladda in badan ay ka codsadeen in halkaasi ciidamo la geeyo balse ay dhagaha ka futeysteen dawladda ma badan baa u sheegay meesha waa meel qoona ciidanka Norwegiyo laakiin ma soo tegelin ilaa hadda in ciidan la geeyo marka kale taariikh qoran bay ahayd macnaha in ay qolada hadda mar labaad ay kusoo laabtaan muddo 3 sano 2014 bay margaleen beriyo mid ay shiraayeen haddana markii labaad la ka dambe xasaaro weyn inay dadkii network geynaysa meesha oo dadka kala xiriirinay yani ay gubaan oo maaragtay dadka ay gubaan laamaha amniga gobolkan ilaa iminka kamaysan hadlin dhacdadii ka dhacday deegaanka Faafi balse kaliya waxay sheegeen halkaas ay gurmad u direen ayna raacdaysanayeen kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka Faafi mar walba dhacdooyinka noocan oo kala markay dhacaan siyaasiyiintu inta badan eedda waxay dusha ka saaraan dawladda balse dawladdu ayaa kaliya waxay ku gaabsataa in ay raacdaysanayso soona qabqabanayso waxay ugu yeertay kooxo argagixisa ku ah gobolkani dhacdooyinkii kala duwan ee xigxigay gobolkani ku soo fidayay waxa ugu dambeysay Kaliboy oo ku dhimatay isku celis ilaa iyo 8 askari halka degmada Mandheerana sidoo kale ilaa iyo 5 askari ku dhimatay degmada Laamo ayaa iyaduna sidoo kale ilaa iyo 9 askari isku celis ku dhimatay weerar ay ku soo qaaday ciidamada booliiska deegaankaasi guud ahaan gobolkan oo iminka nabadi ku naaloonay ayaa xilligan bisha barakeysan ee Ramadaanka mid cabsi fara badan dadku ay ka qabaan in dhacdooyinkan ay noqdaan kuwa ku soo noqnoqda gobolkani saameeyna ku yeesho dhaqan dhaqaalaha iyo isku socodka guud ee gobolkani